سوق السدا وها وانا يسو سوق بكاره ماها والله عاوان إذين أرتي سوق دم بالا ترتر ربابة الدولة دخورشيدا دي شيء هردع وايبا إله بقى إذا كل هالشيء جنا عصدها ديدا دكان كاجا هرتي صور مهردا هرتي ذا كاميرا كحر قواريجتي نبضون دلو أما جبرتو قلت هلا قبطو أسكري موبايل هلا أركو حمر دجموين كحمر يحافظي حمر لو أقبلين حد وحي قواريج أهايو نبى إله هرمود كبلاو إلا كان لوس كجدا أنا رنتي دي شيء جاي وهو قواريج سوق أنا عاو أنا فضوضي سوق بكارة ليرا وقت جيسي صدق سنة كدي عاو صوت ماضي والله إذا الدولة دو أمرك إيه بحس كلها منين أنا رنتي دي شيء عاو قيبت كوالي برنامج كيك عاوة حقب بدنا إيديها يا عاوة أو سوق بكارة براها بالشدة سوق بكارة لا ميمة سوق بكارة قيبت الله بعد برنامج كيك أنا هي سوق بكارة كلا جرو كفر نصنا دولة دي سعيد دني وقت جيدو هذا بالكهرسية دي الدجال بإعلام السي عاوة جروي حبض إني تابع بلا بكرتا وحاسة يقدر دولة وحيد المعارض كواجبيين هشيسكي وده حاجوتكي نودحي وافشل مي دي معارض كدي قرشا الله كان عاوة ما جارتينو إسجارسية والله رير بنتلان وقرشا ودني صوتها عاوة أنا ما قلت أنا واكسي ورنعة سدح مالك كدب أفر مالك كدب بلاي غبي بوس كابا سي شيء نمان كان بجت بيسيان نيويورك تايمز وريال BBC وصل شقي عبد الله الشيخ عبد الرزاق ليرا أو لجندري أو مليناي صاحبك أيام لهنا ولا تقرشي وهو قاتين إلى نيويورك إلى حواد لا قندراس قاتين هاي محل دي ربع أسد ديانو هبو كجنح صدا هاي nimanka leeyahay niman wiil eritrea lagu soo tababaraa jiro oo hadda lacag inta la siiyo BNPF inta loo geeyay xiriir BNPF ta la geeyay oo la dhahay farmaajo dalka ku soo duul raba ka celin waa ilmihi eritrea qaar inta soo goosteen hadda ilmihi eritrea qaarna shabaab iska hadii qaarna meesha rabaan iska hadii mugtiin marka waxa la dhihi rabaa lacag baa ku soo qaadan xasan sheekh inaan dadumina Puntland dan wuxuu leeyahay waa ka hortagnay meediyaha loo qeybar baa saas saddex maalin ay qabta jimcaha gaari meeso aa talaada soo galayso warkaas meel ku qorta سوماليلاند أبرجع لها فرتن دبجح جرته أبرجع لها سديتن دبجح جرته عاوان بحنا عاوي تاني وبحنا يا أبرجع لها قرن كده بأبرجع له نقطة ويا سوماليلاند نقدقاقية قول النجود يمشي اللي يرابق دركين إلا يجوميس عاوة إسقامي يعني منك أبرجع له عد سرا نجي سرا يعدو سرقال سرا أبرجع لها جواردي واو جرني هو كان ونود مسترية أول واحد هيستوي الرصاص لان وحين هدوا المستريين قيبت سدحات برنامج كيك بقدركين هاي دمبسي هورتو waxaa ilaahay maadiis Soomaaliyeed Muqdisho waa nabad 4 milyan 5 milyan oo qofood baa nabad ku saacad habeen kasta taas ma bariyo ku imaade faataxada ku imaade bariyo garguurasho bay ku imaade wiilal baa dharaar cad banaanka taagan ma seexdaan roobka daadka qoraxda mataqan boorka waxaas oo dhan wiilal bay ku dul socdaan oo rag hooyooyinka jiifi aabayaasha jiifa wiilal booliis military la dhaho baa horta u mahad celinay ilaahay ka sugow intaas waxa dheer magaalada booliis military ma meel kasta taagan magaaladii dhan camera laga dhigay horta intaan ogeyn qurba joogo ogaada magaaladii dhameed odayaa la dilay waa la baxsaday muxuu yiri xamse cabdi bare waa diliyay meed baa baxsaday marxuum hatta ma baxsan kara camera meel kasta ku xirnaa bakaaro oo suuq hawiye iyo suuq Soomaali ah marka runta ka hadalno oo xinihiga aniga yaalo oo qof kasta oo milyaneer hawiye halkaas wax ku leeyahay mashaqada Soomaaliya hadii qawaariijtii qoryaha sidii laga adkaaday oo kuwii wax dili jir la soo qabanay hadda kaamiraha ka baqaan ama la soo qabtay ama weerarkooda ha fashilmaanay ganacsatadii dhaqaalaha dhanka dhaqaalaha ama ganacsatada hadii la dhaho kulli qawaariij waa qawaariijta kuwa dagaalamo oo xaradheere ka dagaalamay iyo ka dagaalamay ceeldheer ha u maleeyay jilib ayagoo ganacsata darun ma isku sheegi karnaa Soomaaliya wiilasha jooga wariyaashan kuma dhiiran karaan wallahi ana ku dhiiranay billahi tallah ganacsatadaas oo jeeda bakaaraha 80 ani 100% ma dhahay 80% dadka qaar ma aaminayaan waa wada qawaarij ka bilaab anteerada dheer hormud kalooska gada kalooska ku wax dilo waay wax kale uma dhahay sababta dukaamadii iyo meeradii ganacsigii bay nabad sugidii waxay ka laadahay war $50 kaamera joogto suuqa waxa la soo galiyay ma talad baa nagu qasbaya kaamera $100 joogto nin cayrabo kaamerada u xiray waxaas ka baxa suuqa bakaaraha meherad kasta lagu xiraaya kaamera haddaa diidaan oo qawaariij inaad tihiin ummaddu u cadaysaanna ood ganacsiga imaa weysaanna yaa suuqa dhan baa la ciribtiraya hadda ku bishaaraysta
أول برير مقدسة كتستين أو بحمر ويري إلا كاران إيه عمرين إلا مكة على المكرمة وعمرين بكاروا وبلقت تجربة واحد لو قلت تجربة وخوارج تاس على قونين لوسو قدايا أضيو دلايا لوسو قدايا إرجدي بصدرت ودلايا لوسكو وطا هرمودو كاجلا نيشن بو كاجلا تلكم كل واسكم إلهي إذا كل شيء Soomaaliya bal idinka gar qaade gar ilaahay taqaanay hadii la yiri meheradaada $50 kaamira joogto ku xir war xataa qawaarij iska dhaaf askari gabar iPhone ka hada ama ka dhaca xataa meeshan kala soconayna hadda qawaarij waxaas may rabtaa inta qawaarijtu waxay rabaa inay qaylaha habeenkii maalintii iyo maqribadani dadka dilaan kaameraduna waa sheegaysa dukaanku galo xaafadu gala ma la rabo markaas qawaarija ka baqayna qawaarij ma ku dhaaftaa qawaarij umada Soomaaliya ma dhaaftaa wariyaan ninka dukaanka kule bakaaraha maanta hadii hotel SYL soo weerar ma ku dhaafay warkan kii ganacsadii waaye kii biskoolada noo qari jiray waa kii kaamirada dhaaf bush ma madax ka siinaysa marka qof intaas moog ma leeyahay ma ninkaas qawaarij ahayn suuqiiba maanta ganacsiga la imaa waay macnaa qawaarij yaa dhiirgelin la siinaya qawaarij jilib ilaa ceeldheer aan ka sokeenin oo gobolada dalka dhan laga sifeeyay bay ku leeyahay waana dilaysa war intee ku dilay calkabiina nabad ugu hoytaa warkaarana nabad ugu hoytaa iyo madiina yaa ku dilo kaamira ku xiran waa lagu xiraaya laba lee waa ku dheeran maayo waa lagu xiraa ama suuqa la burburina bis maad salaadow haddaa taas ka weecato ama aad u dhimriso wallahi hada qawaarij kala ah wabillahi utallaayan ku dhah ha u dhimrin wariya qawaarij maxaa noo reebteen waxa u reeban meeno ganacsatadana hala baaraba ana amraca suuqa waa xiraya ama amarka dawladdu waa inay u hoggaansamaan qaybtaas aan kaga baxaya هذا رول الشيء بين بان قرصوني منافقة قواريجتو كان قرية وطي كان إسقاحية ما كوا جروا وين والشركة ذا إسقارسين تفريا جري يركوا قد يبحر لي خميس انتاس انك يقول بايا جروا لكن سعيد دريها يجي معارضك واحد على الستورت مرة دي لوير معارضك دي واد وده هذا اللي نص عدوات ديدين دي جود على حلال الصناعة إذا كبي أم بي أفنا والله شيء قبل ديار جروبا ليري خبر عيسى ريوشا انت دقن ايو خبر عيسى بهد الروبلا انت دقن waxaas ma qornaa lii ku bilaaba sidoodaba nabadu waxay imaada uridani marka la dhiigu daata kadib waaye waligiiba dani saas waa kaasa amar Soomaali u soo tartama ka waran ilaahay ku dhaarshadani bal hadaa qaran ku aamin ilaahay ku dhaarsho kor ama xamaro ku dhimala ama unuku waa isku dhamaan lahaynba ninkii dani aha laba qorsho ayuu la yimid oo wariyaan New York Times u shaqeeyay anigu waxaan ma qariyo BBC u shaqeeyay Soomaali oo Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaqin liiraw BBC u shaqeyn jiray saaxiibkay ayaa la hanolaato si ku daraya baasha aniga VOA waxa dhan gaal iyo muslim waa la qeybiyay imaaraadka asaas u shubay saas waxa la rabaa marka hore laba qorshe la degsado marka waa marka koowaad ee General Asad Ismaan Cabdullaahi Diyaano iyo tiimkiisa mideeye in la yiraahdo General Mahmoud iyo Asad ba waxay ka ganacsadaan hubka hatta ogaadan ku hadda tan qorta caaw hubkay ka ganacsadaan Puntland amnigeeda qalqal ku yihiin dhiigooda saas inuu xalaalaysto weer loo aado ila dimuqraadiyadu waa socday Soomaa wiilal BMBF inta dharka laga bedelay oo la yiri ciidankii electric waa ciidankii electric ma joogaan ba waa barrum ku farmaajo soo tababaray qaarna qawaariij iska galeen qaarna meelay ka imaan iska aadeen ba ilaa awal baqarna qorshaha loo wato qorshiina waa ka fashil labada sano iyo extension Soomaa qaar loo ekeysi ama ayagu yihiin ma ogi baa raba inaan baasha waa fiican in la taabto toos loo taabto laga xishoodo ma ciidanka marka waxay leeyihiin lacag baan la soo siiyay electric iyo wala isku xiray Xasan Sheekh Maxamuud ya xasana ka badbaadina Puntland macnaha iyo ninkii leeyahay farmaajana waa burburrimna iyo faad waa ka badbaadinay ninkii leeyahay xasanna Puntland buu ku soo duulayo ciidan buu electric ka keensado ayagana waa laga hadal siin rabaa ciise ruush madaxdiisiina ama Xasan Sheekh Abgaal ama ina farol hatta odaga farolana qaswadayaal dhiigooda lagu xalaalaysto macnaha by the way muhiimadu dani dagaal toos buu diyaar garooway way faatay Soomaa marka hadalka hadda idin sheegayo bal 3 maalin kadib intaad miisaan saartaan baraha bulshada fiiriya kadibna igu soo laabtay warka waa warni weyn waay dani yo waxaad kala heshaan leeyahay adiga Maxamuud Salaaman laakiin Maxamuud Salaaman kalamaadko taariikhda intaan ku hayo waaye waxa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo bari bulshada saaq socotaan abar jeclo suulmadow baba waxaan dhageysta hadda cod sargaal uma fasaxni ina sii deeyo sargaal habar jeclo ah oo miisaan weyn kula Soomaaliland oo taagan habar jeclo qoranugudna konton gaaray u dirtay meesha lira boqdarkeenna konton kala loo diray
lixdan maskax boqolaal loo diray meelahan kale aqoonday baa loo diray rasaas dambo isaaq go'aysi Somaliland ma jirto wiilashu waa ka mural badiyeen sida hore saacadaha soo socda waa inuu dagaalku galnaa waa inuu dagaalka galnaa waan rabaa Somaliland ina hal su'aal weydiiyo horta dagaal waad galeysaan oo waa u jeedaa dhaqdhaqaaqyada caawa la soo sheegayo saacadda taageeran maayo ilma adeeral horta waxa ay cadaatay qarankii Somaliland ba habar jeclo ku soo aruuraba qaranka waa baxaya iyo qaranka waa laabanaya iyo ma jirto dadul baantuur waxay leeyahay wuxuu waa qariimo wixii la keenay waa qariimo waxaan rabaa Muuse Biixi wuxuu go'aansaday shar iyo qeyrba inaan ceebtan hargeysa filla hargeysa la fadhi karinba dadka qaar isaaqi qaarna waxay leeyahay war odaga meel uma socyo extension buu wataa dirina halkaas oo extension ka wataa waxa isku dhamaanaya waa habar jecel jaamac siyaadi ya bosow dadka ma u sheegtid waxaan habar jecel boojo waa dhaafeen afar baqalo maxabiis la iska haya oo nimanka hadda laan qeyrta caso waxaan arkay Muuse Biixi uu saxiixayo inuu 100 nin uu harti ka hayn uu si deynayo 400 ayaguna soo daayaan hadda Muuse inta rawaab sameeyba by the way habar jecel waxay leedahay rasaasna nagama go'i doonto wiil nagu filan waa helnay ama isaaqana soo raaco saacadaha soo socda aniga ay harti waxaan kala helna leena anaguna aan aragno waxaad kala heshaan halkaan baa ku falanqeyn doonaa waayahay barnaamijkayga habeenimo intaas ku soo gabagabeynaya saaxiibayaal inta barnaamij noocan ku kulmi doona waa boosko idin leh siyaasadda waa ku fadhisaa hadda boga fadhisid bye bye